السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي halkan meel kasoo durida dacalada naga daawanasaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. maanta waxa inoo martiya abwaan bulay baa inoo martiya kulli abwaan bulay iskiin bari maayo muuqaalo hore oo ma garanaysaay ayaa ka horeeyay kuwan muuqaalada ina daawateen baan aad u filayaa markaas ku soo dhawaad abwaan bulay sidii qowan dhawahay walaaladii channelkaaga iyo asxaabtaada dhamaantood waan salaamayaa maanta iyo mar kale waxaan loo sidaa gabay markii hore jacayl baynu ka sheekeynay markii hore iyo maanta bal xagga kale iyo wacyigelinta Soomaalida iyo dhibka haysata iyo kulli aniga aragtidayda sidaan u arko sax aad iyo aad muhiim tahay maansadan uu maanta abwaanku inoo sido sida uu noo sheegay waxa la yiraahdaa qasaare maansadani maxay ka hadlaysaa markaa abwaan sidii wax badan bay ka hadlaysaa waxaana ugu badan Soomaalida iyo nolosheeda sida uu nooshahay waayo waxaad arkaysaa taa iyo maalintan garaadsaday hal mushkulad baa laga cabanayay Soomaalida ka cabanaysaa lama xalilo lama dhameeyo waxba lagama barto dhacdadu way dhacdaa hal dhacdo baa inagu soo noqonaysay 100 sano in ka badan oo laga cabanayo aan waxba laga qabanayay leesma weydiyo waxan maxay wixii markuu ku dhacay mar labaad haday kugu dhacaan waa nacasnimo mar waa loo ogoliyay inuu kugu dhacay hal mushkulad bay ka cabanaysaa waa qabyaaladu kaliya tabaas marka aniguna tii inta ugu badan qabyaalada saaraya wuxuu kala ka hadlayaa siyaasiga oo kale nin shalay ku xaday oo daraad ku xaday oo aad ogeyd oo aakhiro kula daadigay oo wixii ummadda dhan qaatay baaberina loo jaameynaayo qabiilnimo lagu dooranayaa isagoo la og yahay inuu tuug yahay ninkii waliba Soomaalidu ku darso ninka ma garanaysaa qablaha wax cunaya bulshada wuxuu taray ayay oranaysaa kana ma garanaysaa cadkiisa soo goosan karay waa qabiilnimo baa lagu kaxaysanaya wax kale lagu kaxaysan maayo ninba ninku ka xun yahay ninba ninku ka xun yahay baa la dooranayaa ka qabqable iyo baaya badan ku darso oo kan xitaa dooranaya ee horboodaya ee u oroleynaya ee isku qabiilkiin hadhow waxa laga yaabaa inaan waxba kuma jaygu afku gelinaya waxa laala wuxuu u qabanayaa iyo wuxuu tarayaa midna ma jiro waa uu salaanka jiranjirada qof meesha lagu koray lagu fulayo laakiin wax kale oo uu qabanayaa ma jirto midda kale Soomaalidu waxa jira waxyaabaha ka ilbixin oo siyaasigan maalin kasta loo xasan qabanaya haddana soo hortaagin haddana loo cadeynay qofkii xitaa hadduu ma jiro iminka siyaasi hadda mid baaba jirtoon oo mid yaro in moogaan lagu aad u taageersanayo barxado kale labada nin oo kale aad iyo aad labadii kaliya siyaasiga aan oran karaa walno codayn la hadda dalka joogo dariiq cusub bay jeexay markaan nimankaas ilaahay baa og deer bay dumiyeen insha Allah waxaan ku barinayaa halka ka sii wadaan oo dogobyo la sii saaro dabkaas aan baqtiin waxaana caalamka siyaasiga lagu doortaa markay siyaasiyiintu samayso barnaamijkiisa oo soo bandhigo siyaasiga siyaasiga lagu doortaa laakiin inuu sidaasi ka duwan iyadoo aan waxba inoo sheegin baan codkiisiina qabiilun baa lagu dabayaa ayaa wax kale lagu dooran maayo meel la ina geyn maayo kaasi waa ka ummadda inaga reebay badee marka gabayga uu dheer yahay oo maadaama aan jeclaan aan luuqda saaro waxba saarmayna oo isaga martireynaa maadaama gabaygu dheer yahay gabaygana qasaara la yiraahdaa nuxurka iyo wuxuu xambaarsan yahayna cidda kama qarsoonaya waxaan filayaa gudihiisa nagu tegi doonaa gabayguna wuxuu ku bilaabmayaa sidan indhaweyto geeraar ma qorin qaabku leeyahay dibnahaygii waa taan qafilay qiilkii maansadaya waa taan qarbuday maalintay quruxda siijeena qaafiyadda waa taan ka hadhay qodobadiisii aragtida qadiyadiyo waxaan qariyo suugaanta qalloocaaga maantaan arkaan qaafka curiyaaye kolley kama qatoobay haddaan qeexo hadalkayga wacyigaan qarsoomayn haddaan qunugu luuqeeyo caqligayga waxa qaban la'een qaadan kari waaye bulsho yahay dareenkay qasbiyo qaaca murugteeda qoontaad ka kici weydebaan kuu qayaxayaayo qaylada waxaa iigu wacan hooqistiga maanka Soomaaliya qabiil kama hadhaan qoliyo reer baasifaan qaraxa weligaa qiyaad waad ku qanacdaay qarashtaa warkeediyo inaad dheef ka qabataayo waxaan qodoba kuu goyn karay qorof yar oo waxaan qodoba kuu goyn karay baad qadarisaane kolay tahay quraaca waxaan jaray qolof yar oo liin adiga quweeye maxaad dhaxal ka soo qaaday qoloqolo hadday saa taho qiimo laga waayay ii sheeg qasaaraha waxaad kaga qamaamayso su'aasha qadeeyay haddaan qunuga laafiyoodo laba aan isqabanayn haddaan qaafka ka cadeeyo tusaalaha haddaan kuu qadimo qaranka naafeeyay bulsho wada qaribantoo xumaa qiilu dayanaysa qof kasta wanaagii qarsho bilow qeyshaatay qurux baan u dudayaa haddana
qaadan kari maayo isma qabato labada qorshaad qoonyo falaysaane qaladka miyaadan lahayn quusta kugu xeeran ha afarta araar qaab lehiyo qaradha suugaanta qaranqaaradii maanka taal qulub wareerkii indha way tixqeedhinahay qabatinkeedii gabayga qaan gaadhayo qaraw laabtayda afar kalena qowlkaan akhriyay qodobadiisii dhe qaylada ujeedkiiyo haddaan toosu mudoqoonta waxa aan la qowdhamayo jiif u qaban waayey qurun yahay waxaad eedaybaan kuu qadimayaaye qabyaaladda inaan jecel lahoon qurunka muunayno lama qarin karo waad og tahay qaabadaa tahay ee dulyahow qaraabiyo ehelo qolo la maamuuso khasaaraha miyaad ka ilbaxdaa qowga iyo laagga bulsho yahay qariib baad ahayd tan iyo qaabiila qandhadii doraad baad ogeyd qaabkii loo jabay haddii aan qiyaamihii shalay lagaba qaan gaadhin hebelkaad qabiilaysigiiyo qoysku daba yaacday qorshalay ininkaad dooratee qolo ku taageertay qarannimo inaad ugu dudaa waa qalbi la-aana idinkaa qaldane maalin baad qaban lahaydeena qiimeena waad kari lahayd qaabaduu yahay qaamuuska adigaa ka hadhay qowl laguu dhigay qabyo taagan qisadii iyo dhacdada qalinka loo diidiyo taariikhda aan cidi qorayn lagana qaan gaadhin waa waxa khasaaraha ku baday tan iyo qaabiila qarni hore halkaad eedaybaad saaka qabateena dulliga adaa qaayibo yeelay quursiga ee qayladii aan kuu soo direen qaado garan weyday bulsho yahay qalloocane adaan qiimo garanayna murtidayda qaabkaan u dhigay qowlka ereygayga dhawaaqaygu waa qoonsateen waana qariseene qorsho dhow waxaan kuu sawiray qeexay midabkiisa inkastoon qadiimiga fogiyo muujay quruxdiisa isma qabato qaabkaa tahiyo qayladaan dirayo cabasho iyo qaaqdaad haddeer soo qadimanayso sawtaad qareenka u ahayd qoomamada caawa qururuxiso adhi kama ilbaxo tan iyo qaabiili qoonyahow sidaasaa tahiyo qaabka xoolaha ee qoonyahow sidaasaa tahiyo qaabka xoolaha ee haddii aad qurgooyiyo misana qalasho doonayso inaan gabayo qaban qaabiyoon qeexo hadalkayga alla qaniyo qalad buu igu yahay maanta qowlkan iyo u qushuuca hooggii mar kale qaadan kari maayo afartaa canaantaan qallibay qarowga laabtayda qorshihii iyo ujeedkaan lahaa qodobadiisii dhe afar kalena qaabkaan u dhigo quruxda suugaanta iga qabo balqoonyahow dareen qowlka ereygayga qafladiiyo dhibaatadan qafilan qaadan kari waaga qadar eebbe qaybtii ahee qanigu noo keenay qoonyahow intaad sabab u tahay qaacan kugu yoomay bal qiyaaso maantaba waxaad adigu qoondaysay dacaliyo qadhaadh baad og tahay qaaq inay tahay malmalkii adaa qooshtayoo qooyay xabagtiiya sidee quud macaan ugu dudaa waa qisiyo yaabe qorshahaagu soomaaliye wuu qaldhibayaayo dayacaagan qaan gaadhayeed qiilu daynayso qaaquul dagaal iyo intaa qulub ma daysaane qaynuunka waa necabtihiin qodobadiisiiyo musuq iyo qaxaad jeceshahoo qiimo gelisaayo markaad adigu qalabaa gadiga qiiqdoo dunidaadu halyaygii markaad qalato iyo qoodha gurigaaga qabri maalintaad ku hubsataad qiiro shidataayo intaad qabiil iyo tolla-ay quruxda moodayso daraasado ma qaban qaabisaan qaabkii nololeeda iska daa qoraal iyo dhigaal waxaad qorshaysaane qalad iyo mushkulad kama kortaan tan iyo qaabiili adigoon qardoofadii horiyo hiba nin qoontaada iska qaado adigaa qorshaha qow ka raarriday khiyaanada siyaasiga kolley kama qancaysaane qaraamkii markay kuu shidaan qiirada iyo beenta muusigay mar hore kugu qaldeen qaacigi iyo heesta qalbi taabadkay daarayaan qaado taladooda khuraafaadka waad aamintaan qiimo waxaan leynay iska qanacsidaadii mar kale qaabka adhigooda soo saara caadifi qab weyn quursi kugu maale masiirkaaga ruuxaan qadarin qoomo noloshaada quranjada midkuu haysta iyo quraca meygaaga quwaddaada duul beeniyo dilaya qaangaadhka kumayaal dugaagoo qarsoon baad qadarisaane qarankaaga kuga dhaawaco qolaba meelgeeyo quud nimanka kugu doorsadiyo qarash yaroo liita shalay tuugii qoonyaho ku xaday qaanna celin waaye qasnadaha raggii mariyeybaad qaran u dhiibtaayo masab iyo xilbaad qabo dhehdaa qoonkii berigii iyo qurun iyo xashiish beera tooy waad qarribanteene maxaan anigu kuu qaban karaa qabarku naafeeyi afartaa qisdiga maanka iyo qaradha laabtayda qaranqaaradiian hursadiyo qulub wareerkii dhe afar kalena qaaca igu shidan uurada iyo qiiqa qalbigayga waxa yaalla iyo qarowga ruuxdii dheh inahaa qadeeyay haddaan qunuga laafiyoodo guurow haddaan qeexo iyo qodobka suugaanta gabayadii qarniga waxaan curshiyo qiiradiiyo heeso qaramka iyo geeraarintaan duubay quruxdiisa imisaan qaniiciyo xadiis qowlsan ugu yeedhay kolley waa khasaaree intaan qiimo gelinayay haddii uu dadkani qaadan lahaa taladan qaabaysan quuskama ahaadeen tixaha qodobadoodiiyo qaylaan la dhuubtoo haddeer qaanac baan ahaye qalbi dhagalaa baan la hadlayaa maanku qoy waayo duulaan qur-aanka iyo waxyiga qaadan baa jira ee maskax dhagaxa qaabkii ahoo
qowlku soli waaye qalfoofay muraayadii qalbigu qaraxday oo yeedhay duuluu qabiil kala qoqobay kalena qaybqaybshay ummadaan qadiyad wada lahayn qoloba meel aaday iska dhaaf siyaasiga qarriban wuxuu qalloocshaaye ummad shiikha iyo qaadigii iniba qoys raacday wadaadkeedu qowlaysatada qalabka siinayo odayada oo ay quraab iyo dhadhamo quudu dirirayso odayada qadaadiicda jecel qarash in loo dhiibo maqajilaha dhaqankii qallibay kii qalbiga beelay iska daa waxay kaa qaldaan kaa qabjabiyaane bal qiyaas markuu qaadigii qaybka yahay hooga qabqabluhu siduu noqonayaa waa qisiyo yaabe marka wadaadkiiba dee xarkaha goosto talo qabqablihii muxuu dee noqonayaabay ma garanaysaa su-aashu noqonaysaa afartaa khasaaraha ku hoday qoliyo reer baasne qoonyaho waxaad eeday iyo qaranjabkaaga idha afar kalena qowlkaan akhriyey quruxda suugaanta haddaan gabayga sii qeexo oon qunugu luuqeeyo maansada waxaa igu qasbiyo qayladiiyo heesta intaa waxaan la qowdhamayoen jiif u qaban waaye qabyadaadan aan cidi gufayn dheeg kastaba qaawan shidaal qaraaqa macdan qaaliyo qani ah oo buuxda nimco laga qadiyo dahab qotoma laga qadayn waaye iska daa wax quud kuu jariyo qarashkii weynaayo dheeman aan quraac goyn karayn qolof yaroo liina qolqolka iyo meeshii kastaba qubanoo taaltaalla malyuumaad quraabkoo ah iyo badahan qaabaysan adigaa qadoodiga ku nool qaaradoo dihine qaadhaanka reer yurubintaad qiimo gelinayso khayraadkan buux dhaafaybaad qodan lahaydeena quursiga maxaa toolku baday waa qisiyo yaabe afartaa qaloombiga naftiyo qara dhammaankayga afar kalena geeraar qotoma qunugu laafiyoodka gabaygayga qowlkiisa iyo qodobadiisiibe qaafkii haddaan sii wadiyo qaacan kugu yoomay qaylada haddaan qeexo oon sababta qaadqaado qoon iyo dad adigoo ahoo qab iyo maamuusle waxa uu asaagaa qabsaday culiyey qayrkaagu waxa adiga kaa qariyeyba qaadan kari waaye quuriyo hurdaad kaga jirtaa qaabkii nololeedii qoolkii dib hawgelin mar kale waad qawiranteene ummad yahay qalloocaaga galo qaacan kugu yoomay ka ilbaxa qabiilkii iyo tolla-ay eeday qabarkaasiyo sharciga iyo qaynuunka galo qoonta nabarkaaga diinteenna qaaliga ah iyo qanigu suu sheegay qira maxamed quwadii aliyo qowlka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qanci eebe duulyahow qushuuc waad qatalanteen in qumanuhu waddadu qeexay iyo qaada hirinkeeda ha qarbudin qanicada islaam qoonyow libintaada qiyamkaagii soo celi mar kale waad qarribanteene rabbi lagama quustay quwii qaaca murugtaada alla ilahe dareemaha qarbudan waa qalbi la-aane iimaanku maantuu qallalay maanku qoyi waaye waa kaa wanaaggii qallibay qiimihii beri ee ummad yahay qur-aankiiyo akhriya qowlka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inahaa qadeeyaya haddaan qunuga laafiyoodo waxa aan khasaarihii horiyo anigoo waxba yaan khasaarihii horiyo muujin qadafkiiyo kulligaa qiraaraad ka tahay qaranjabkaagii iyo quustaa haddaan kuu sawiray qaadan kari waaga qaladaadkii waagii haddaan yaraha qaadqaaday qaylada bal aan soo afjaro qodobka suugaanta gebagebo haddaan soo qatimo qarowga laabtayda qaafkii waxaan kaga tegiyo quruxda geeraarka qorsho yeelo soomaaliyey qabarku naafeeye qaangaadha duulyahow haddaba qaata gabaygayga ha gabaygaa khasaare runaantii gabaygaa khasaare waa gabay macno weyn xambaarsan soomaalidana dhinac kasta kala hadlaya hadday tahay xaggii qabyaalada hadday tahay ciddii ay dooranayeen oo ereyada gabayga waxaa ka mid ahaa nimaad qabiil kusoo doorateen baad qarannimo ku dudaysaa waaba laga gardaran yahay waaba markaa garanaysaa midbaa kuu sheegaa sidiqo waa laga gardaran yahayba ninkaas sax waayo aniga qabiil baa soo doortay qabiil baa kursiga keenay qabiil baa kursiga igeeyey hadda ma fahamtay oday baa i waday qabiilayste ah oo dee nimanka dadka iibiye ah anigu nimanka aad baan u nacabahay sax marka in la yidhaahdo muxuu qaranka isugu wadi waayey muxuu hadalka qabyaaladiisan ugu hadlayaa muxuu waxaan u leeyahay dee waaba laga gardaraya ku yimi maxsuulka qabyaalada kasoo baxaya in qarannimo loogu dudaa waaba khaladba dee waaba khaladba waaba inagaa ka gardaran inagaa ka gardaran hadduu ummadda kala qaybiyo hadduu qayb u jaro hadduu wuxuu doono sameeyo wuu ku saxsan yahay waayo waa waxaynu ku dooranayba de soo maha ha midda kale waxyaabaha kale aan la yaaba waxaa ka mid a qof isagiiba xumaan faraha kula jira haddana ilaahay doonaya inuu wanaag ka sugayo oo wanaag u dudaya taasina waa mir subxaan allah marka hore caadi noqo markaasaad wax wanaagsan helaysaa ilaah baa og markaad adigu daahirto baad wax wanaagsan heli kartaa maxaan ku dhahda adigoo xumaan faraha kula jiro waxaad doonto samaynaya haddaad tidhaahdo ilaahow sidaa noo yeel oo maxaan ku dhahdaa halkaagii xumaantii kasii maysato dee kulley siba u yar qalloocan tahay ma garanaysaa ilaahay waa deeqma waaye waa gacmo weyne ma garanaysaa oo lagama dayrin karo xaggiisa laakiin qof xumaan faraha kula jiro oo wanaag u dudaya dee kulley anigu isaga suurtagelayso ha ma garanayo
aad iyo aad baad mahadsantahay abwaan. waa gabay aad iyo aad macno badan sameynaya, isla markaasna meelo badan taabanaya, isla markaasna soomaalida dhinac kasta kala hadlaya. waxaana muhiima inay soomaalidu ay kuwaana qaadato oo ay iska dayso siyaasigan ay kusoo dooranayso qabiilka, hadhow toolana ay qaran ugu doodayso. fadlan haddii uu muuqaalku kusoo gaadhay, like-ta saar, share-tiyo commentigana soo badi. haddii aad nagu cusub tahay oo aad tahay markii koowaad aadna soo booqatana, fadlan subscribe noo saar. intaan ku kulmano barnaamijka lamida waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulantay. nooli kulantay.